Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga soo dhawaada meel walba joogtaan. Waa subax wanaagsan. Saacadu waa salaadii subax ayaan ka baxnay. Waxa weeyaan meelaha 5 iyo barkii soo dhawaada. Dabkii ayaan shidanay. Gargaraha aroortii waa inaad dabka ku shidataa oo gurigu bilaa dab inuu noqdaan uma jecli sideedaba. Haddii aad gaas isticmaalayso haddana waa inaad dabka aad shidaa aroorta hore oo uns iyo waxbaad u baahan tahay inaad guriga ku shido. Markaa waa inaad dabka aroortii iska shidataa oo aanad isku halaynin gaaska kaliyaata. Dabka gaaska laga shidayaana ma fiicna. Habeenkii waa inaad dabka iska aasataan. Taa markaan halka kaga imaado maanta topic-aygu wuxuu ku socdaa gabadh miskiinada ayaa maxay ahayd wajiga tashqiir marsatay. Waayo miskiin markaan leeyahay miskiin Ilaahay baynu wada nahay oo waayo masaakiin Ilaahay baan gabigeenu wanahay. Markaa waxaan ka wadaa gabadh masaakiina oo dhibaatadaasi inay gaadho kulley bil aadan baynu nahay ma jeclin waxaad yaan sameynayna inay dhibaato naga soo gaadho mana deynaqaano. Sidaa hay ahaataba gabadha halkaa timleenkaad kusoo arkayseen gabadhaasi madoobayso ayaa tashqiir loogu sameeyey kadibna gabadhii xasaasiyad bay lahayd wajigii madaxii iyo waxaan ku leeyahay indhihiiba way barareen. والله dhibaato weyn baa soo gaadhay madoobisaduna saynu ognahayba dhibaato badan bay leedahay. Hala iska ilaaliyo Ilaahay iyadana caafimaad sareecana ha siiyo. Dhibaatadeeda baashaasina hala iska ilaaliyo ha laga digtoonaado. Tashqiirka hablahan iminka aad bay ugu soo bateen habluhu qurux iyagoo ka deeya haddana xoog ayay u isticmaalaan ma fiicna. Labadaadoo tashqiir haddaad doonayso ku samaystaa wax kale ayaa la qaatay madoobisa iska daa madoobisa ayaan kugula talin lahaa inaan taasi maanta wad arkaysaan. Hablo kale badan baa jira iyaguna saa noqday. Hablo waxaan garanayaa anigu indhuhu ku xanuuneen oo indhahooga aragga waxba daciifu ka noqday si madoobisa u marsanayeen mar walba. Dhakhtarku muraayadu soo qoray hadday muraayada dhigaana aan waxba arkayninba. Markaa baashani aad bay inoogu badatay haddaynu Soomaali nahay kama digtoonaan naqaano. haddii aad maxay horta wayna isticmaalnaa madoobisadan aad baynu isticmaalnaa dadyooga kale sidaynu u isticmaalno ma isticmaalaan wax dabiici ah dadku isticmaalaan laakiin inagu madoobisada aad baynu ugu badannahay. haddaynu ciro leenahay haddaynan lahaynba aad baynu isku dhaboqnaa. taana waa laga wanaagsan yahay caafimaadkeena inaan ilaalino aad bay wanaagsan tahay. waxaan idin leeyahay muuqaalkan hablo kale oo saas iyaguna sameeya oo aan fahmi laba waxa ku dhacay ayaa jira. cidiyahoo kale way daadisaa inaad aragteen mooyaane baashan halis weeyaan. gacmaheenna way adag yihiinoo iyagu waxbaynu ku qabsanaa mar walba ma dareeno qof xasaasiyad le mooyaane. laakiin cidiyaha hablo badan kolley way ogyihiin in maxay heday dumar badan ay ka daadisay baashani. markaa waxaan idin odhan lahaa hala iska daayo madoobeysada ha laga digtoonaado. xasaasiyad inaad leedahay iyo in kalena haddaad gacmaha marsanayso waa inaad ogaataa. cidiyahaagana haba u dhaweynba madoobeysada waa baastirad weeyaan ha u dhaweynba cidiyahaagana. waxay noqotay madaxa maxaabad u marin dhibaato u iibsaniba dhibaato maxaabad u iibsan walaashay iska daa ha marsan dawadan ha marsan iska dhaaf. inantaasi Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay caafimaad sareecana siiyo oo Ilaahay cawad khayr qaba uga bixiyo oo baashaasi aanay waxba yeelinba ayaan Ilaahay uga baryaynaa. xaafadda waa laga yara buuqbuuqayaa intaana igu yara qaataa. please muuqaalkan ha isku koobin adigu walaasha oo saasoo kale mar walba madoobisa u marsata ayaa jirta u sheer garee hablaha kale walaalahayna u sheer garee hablo haleys bood gareeyo haleys caawiyo hablaha loo sheer gareeyo muuqaalkan si ay u daawadaan uga digtoonaadaan.